ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto maanta waxaan ku suganaa xarunta midowga Yurub ee Belgium waxaan kula kulmay marti magacaaga ku bilaabay Alaala iyo Axmed Alaala waa marti ka timid dalka Ingiriiska ee u yimid shirkan ee looga hadlayo seafood export muxuu ku saabsan dad badan oo garanayna Soomaaliya jirto dad aan ogeyn baaba jira maxaad ku baraarujinaysaa marka ummadda Soomaaliyeed ee ka dhageysanaysa barta YouTube-ka ee Xasan Cabdi Shaafici walaal wuxuu ku saabsan yahay seafood waa maxaa lahaa waa howlaha kalluumaysiga dhoofintiisa waa carwo meeshan wax la dhoofinayo wax la wadanka laga qaadayo dadka ganacsatada Soomaaliya ana wax haysta siday wadanka ugu soo kordhin karaan iyo ciidda Soomaaliya interest-ka oo u baahan inay wax ka dhoofiso ama wax soo geliso labadaba soo carwadana wax walba lagu soo wada bandhigaya adduunka dhan baa isku yimid cid walba rabta inay Soomaaliya oo interest ku leeyahay kan aaminsan Soomaaliya burbur baa ka jira ee dalkeedu waa dal ma iska tagay kan aaminsan maxaad ku baraarujinaysaa ee Soomaaliyeed ee ka dhacsanbo siyaasadda Soomaaliya maanta maasha aad soo baxday juhdiga aad gelinaysid Soomaalinimada iyo macnaha in horumarka Soomaaliya wallahi waxaan ku tilmaami karaa kulli hadda ma garanayo laakiin dadaalku wuu socdaa dad badan baa qaladaadka saamsan insha Allah waxaan rajaynaynaa kulli markay wax aan tusno ama wax badan ay arkaan in dadku isbedel ku yimaado shirka goormo soo gabagaboobaya imis wadana ka soo qayb galay والله أدونكو أنت بدنا نكسر وضع قيب كلين يوروب إيشيا أفريقيا ودون بدنا نكسر وضع عربها ودون بدنا كل الدنيا أدونكو نوع كمبينية الصومالي يا نقطة ما مكرتها كمبينية قوين أما معركتي إن ما أنت ماشي كمبينية وحكم إذا الخيرات كمبيني هاي كمبيني وين أو صار له إمس كوميونتي ما مركع وهل كمبينياشة بيسكي سوى مقدشو صومالي كيا له هاي ما هو صار مركع وصار كلهم صار ودو فيها نوحكلو سمايا wadamada internationalka halkaan anaga u joogno soo xirna wax xiriir ay dhaxmar ma jiraan Yurub dalalka Yurub wadamo badan aan dhaxmareen sida China oo la geey galonka Soomaaliya Yurub Mareykanka China wadamo badan baa dartaan adiga heshiis noo socdaan qaar badan oo ku guuleysan qaar badanna hawada la socda marka meel fiican baa noo maraysa alxamdulillah insha Allah maxaad soo bandhigtay marka shirkan waxa soo bandhignay waxyaabaha anaga wadanka ku sameeyno waxyaabaha waxa kamid ah hal iyo laba iyo toban kartaa warshado badan xagga nooga furan warehouse badan oo kalluumaysiga qaar badan oo hadartan hawshooda socoto waa shirkad weyn oo khayraad waxay ku taala muqdisho airport iyo leedahay marka waxyaabo badan aan sameeynayo ilaa hadda aan soo dhoofina waxyaabaheena way arkeen way la qanceen way ku dhac macnaha way aad iyo aad ugu qanceen soo waxaan rajaynaynaa insha Allah adigu inay wax badan aad siisto sunnada ay ku qancaan wax dawladda inta ku jirteen macnaha in bandhigan dawladda cajibi oo harkan ka helay in soo saarkiina ama idala soo xiriir ma jiraan waa kambar weyn oo waxa jiray sheegay Mareykan Ingiriis ku jira Ingiriisku la teelan yahay kuwa kale China waa igana baxdin laha ay sheegeen ma jirin laakiin wax maamul goboleedyo wax looga qayb galay magaca Soomaaliyeed oo dhan ilaa hadda maamul goboleedyo meesha kuma arkin wax ku aragna dad ganacsata oo shirkado wada leh ma la oran karaa mar haddii maamul goboleed asoo lagu soo qayb gelin Soomaaliya weyn ay ka soo qayb gasho wax aad u muhiim oo ummadda ay ku baraarugi karto wallahi waa muhiim waxaan rajaynaynaa ka dambe intaas in ka badan oo ku imaano soo hadda dad badan baa jiraan ka celiyay oo ayagana fiisi ku adkaaday Soomaaliya mushkiil laha marka waxaan rajaynaynaa ayagana in insha Allah sanadkada marka dambe la dhigayo oo sanadkii mar baa la dhigaa aad baad ugu mahadsantahay waraysigaaga aad siinayso ummadda Soomaaliyeed oo dunida dacalada ka dhageysanayso meeshaan ku waraysan waa xarunta midowga Yurub ee Brussels waana soo saaridda galluunka ama ma aragtay horumarka Soomaaliya maanta adoo matalay aan kamid ah dadka ka soo qayb galay aad baad u mahadsantahay